gurigu maadaama uu yahay unuga ugu xasaasisan bulshada islaamku aad buu ihtimaam u siiyey oo in badan baa quraan iyo xadiis ba lagaga waramaya guriga iyo sidii uu jiri lahaa rabbina subhanahu wa ta'ala raga mas'uuliyad weyn buu saaray oo waa ka ilaahay leeyahay ya ayyuhalladhina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naara waragow baa la leeyahay kuwa iimaanka laga helayo nafihiina iyo ehelkiinba naar ka dhowra unugaasi hadduu guulaysto waxay u badan tahay nolosha in badan oo ka mid inay guulaysato casrigan aynu joogno marka dadkaynu nimay reer galbeedka ah waxay aad uga cabanayaan oo aqoon-yahankoodu uu aad uga waramaya burburka reeraha ku dhacay waxay ka cabanayaan oo reer galbeedku social problemska ugu tirada badan leh siyaasiyiintooda iyo qoraagooda iyo aqoon-yahankooda uu ka waramayo waxa ugu horeeya guurkoo yaraaday bay yidhaahdeen furista oo badatay dhalmada oo yaraatay caruurta hayru sharciga oo tiro badatay ama si kale haddaan u tilmaamo waxay leeyihiin unuga ugu qarni dheeraa jiritaanka mu'asasaadka marka la eego ee bulshadu leedahay ayaa baaba'ay bay leeyihiin saa daraadeed umamka kani way baaba'ayaan walidaalika waa nin ka mid a qoraayahanadooda ugu waaweyn ninkii Fukuyama la odhan jiray waa ka qoray buugga uu bixiyay The Great Disruption oo ku tilmaamayo al-infiraat al-cadiim ama burburkii ugu weynaa burburkan uu sheegaya waxa weeyaan waxaa batay buu yidhi xadaarada reer galbeedka jariimada dembiga gelistiisii oo ilaa xad ay soo gaarsiiyaan dembigu wuxuu gaadhay bay dhahan waxa loo yaqaano child delinquency oo junuuxil atfaal yani mujrimiintii waaweynaa markuu soo dhaafay ayuu wuxuu noqday inay caruurtuna mujrimiin ama cisaabaad yeeshaan dhibaatooyinka geysta waxa uu ka waramayaa nidaamkii bulsheed ay bulshadu u dhisnayd oo ah nidaamkaasi qoyska inuu baaba'ay waxa uu ka waramayaa dhalmadii inay yaraatay waxa uu ka waramayaa guurku inuu yaraaday waxa uu ka waramayaa caruurta aan aabba sharciya wadani midhadhka la dhalayna xataa inay kuwaasi noqdeen waxa uu ka waramayaa runtii dhibaato aad u badan oo uga digayo reer galbeed oo ah dadkii uu ka tirsanaa isagu dhibaatooyinka marka uu tilmaamayo taxadiyaadkaas waxa challengeska jira waxa weeyaan buu leeyahay ee sababay reer galbeedka oo u dhaqma buu leeyahay si individualism ama kalinimo waxa kaloo raaca buu leeyahay dumarku shaqada ay qabteen oo badatay oo uu leeyahay gurigii baa baabay waxa kaloo dhibaatada isagu ku daraya inay tahay waxyaabaha dhalmada la isku hortaago maanta la tiro badiyay iyo ijhaadka ama caruurta la soo rido waxa kaloo uu ku daraya shaqada dumarku ay qabtaan oo tiro badatay oo waxa directly proportional oo isku xidhan buu leeyahay caruurta yaraantooda guurka yaraantiisa iyo haweenka shaqadiisa ayaa isku xidhan buu leeyahay arrimahaas oo dhan marka uu soo tilmaamo buuggiisa dhammaantii wuxuu kaga waramayaa dhib aad u tiro badan oo haysata waxaan leenahay challengeska aynu tilmaamayna muslimiintana waa haystaan gaar ahaan muslimiintii galbeedka timi environment bay yimaadeen dhibaatooyinkani ay ka jiraan oo waliba ay ku xeel dheeriyiin maxaa xal ah sidee baynu dhibta tan uga hortegi karnaa burburka guryaha ku dhaca wuxuu keensadaa furiin tiro badan muslimiintii galbeedka timi furiinku wuu ku tiro batay wuxuu keensadaa caruur badan oo dawladuhu ay mas-uul ka noqdaan oo waalidiinta laga qaado inta badanna waxaa keenay guriga burburkiisa wuxuu keensaday dhibaatooyin aad u tiro badan maxaa xal ah waxaan soo bandhigi doonaa xuluusha bini aadamku uu tijaabiyey qaybo ka mid ah dadka badh waxay tijaabiyeen maadaama dadka kan laga dhigay dad maadiyiin oo lacagta jecel in si guriga loo ilaaliyo iyo jiritaankiisa iyo dhalmada badnideeda iyo waxaasi oo dhan in la maro dhanka dhaqaalaha dadka laga maro مثلا wadannada qaarkood waxay yiraahdeen
family valueska si loo soo celiyo gabadhu markay umusho lacag dheeraad ah la siiyo oo halkaynu nidhi shaqada ayaa abuurtay waxay yidhaahdeen dhalmadu ha noqoto mid lacag lagu qaato waddanada qaarkood baa lacag $5,000 ku dhadhow ku bixiya in ilma la dhalo waxay qaateen gabadhu shaqadeeda xataa inay fasax ka hesho sanad ah iyadoo weliba la siinayo mushaharkii ay qaadan jirtay 80% mushaharkeedii oo 80% ah inay guriga ku qaadato la yiraahdo shaqadaad sanadkan haysa waa inaad ilmo koriso waxay qaateen si tan loo dhiirigeliyo xataa aabaha ilmaha dhalay waddanada qaar baa fasax siiyay oo ilmaha ku dhashay islaantii sanad fasaxa la siiyay odaygana waxay yiraahdeen 14 casho fasaxa la siiyay si loo dhiirigeliyo in wax la dhalo ama family inuu jiro waddanada qaarkood waxay isku dayeen in meel kale laga maro mesela Mareykanka ururo ka jira waxay bilaabeen qaab kale in loo fakaro mesela gabadh la yiraahdo Laura Dwell iyo 13 jir waxay qortay buug macruuf ah loo yaqaano الزوجة المستسلمة bay ku tilmaamaan gabadhii isdhiibtay yay isu dhiibaysaa wuxuu ka warramayaa waxay leeyihiin guriga maanta galbeedka laba nin baa ku wada nool ee nin iyo gabadhnimo maaha waxay leeyihiin waa in dib loogu noqdaa dhaqankii ahaa gabadhuna inay guriga gabadh ka ahaato ninkuna inuu guriga nin ka noqdo gabadha tani buugay qortay waxay kaga warramaysaa ay tala bixinteedoo dhami waxa weeyaan inay leedahay haweenow raggiina taladooda aqbala ama raggiina isu dhiiba buugay haweenaydaas qortay waqti aad u yar bay yiraahdaba 100,000 oo nusxo lagu iibsaday oo kan mid noqday 10 buug ugu caansan ee la gato maxaa ka dhigay bay leeyahay waxay leeyihiin baahida taala waxa ay ku warramayso dhami waxa weeyaan gabadha bay leedahay ninkaaga isu dhuldhigayo muslaxato waxaad kaga hesho marnaba kaga heli maysid bay leedahay isku soo taagto marka waxay leedahay ninka waa in laga dhigaa cariin ama libaax buulkiisii ku jira libaaxa buulkiisa ku jira bay leedahay haddii la salaaxo waxa afkiisa waxa ku jira lagala bixi karaa waa iyadoo erayada ay qorayso idan iyadu waxay xalka u aragtaa ay tilmaamaysaa waxa weeyaan dhaqanka feminist groupku ay soo kordhiyeen ee haweenkan la nineeyay inaanay nolosha waxba ku soo kordhinin haweenayda haddii la yiraahdo shaqadii ninku qaban jiray qaba kama warramayno ma awooda mise ma awooda kama warramayno laakiin hadiiba loo diro la yiraahdo warshada ka shaqee computerka samee waxan qabo waa shaqadii ninku qaban jiray haddii loo diro maxay nolosha ku soo kordhisay bay dhahayn waxa may soo kordhin waa intii ninku ba yaqaanay laakiin shaqay haysay aan ninku qaban karin oo caruur dhalmadeed iyo korinteed waa shaqo aanu ninku qaban karin bay yiraahdeen waxay yiraahdaan waa shaqada ugu fiican ee dunida inta la joogo basharku uu qabto waayo in computer la sameeyo waxa ka qiimo badan bay leeyihiin in qof caruur bini aadam la dhalo bini aadam in la dhalo la koriyo la barbaariyo ayaa gantaal in cirka loo diro ka faa'iido badan idan gabadhu waxay leeyihiin shaqada ugu mudnaanshiyo badan bay haysaa feminist groupku iyagu waxay rabaan inay dadka la necbaysiiyo dhalmada iyo guriga joogistiisa iyo reerka hayntooda dabeetana waxay yiraahdaan gabadhu waxay maxbuus ku tahay kitchada iyo sariirta dhexdooda bay yiraahdaan waa marka la rabo in wax la fool xumeeyo sa loo dhigaa waxa sax ah waxa weeyaan bay leeyahay gabadhu waxay haysaa shaqo bini aadam qabto ta ugu fiican oo ah in ilma la dhalo oo la koriyo sida ogeed reer galbeedku maanta waxay dib ugu dhawaaqayaan haddii xal la rabo bay leeyihiin gabadhu waa inay guriga dib ugu laabataa haddii xal la rabo bay leeyihiin ninka waa in la siiyaa mushahar waa sida uu Buchanan buuggiisii uu ku tilmaamayay geerida reer galbeedka buug la yiraahdo qoray dabeetana wuxuu leeyahay xal waxa ah in la soo celiyo buu yidhi ninka in la siiyo family wage wax loo yaqaano mushahar reer lagu maamuli karo aanay gabadhu lacag u baahanin oo ninku mushaharku qaataa buu leeyahay waa in caruurta iyo islaantaba ku filaan karaan si loo badbaadiyo weerahan aan reer galbeed ka tilmaamayo waxaan uga jeedaa inaan idin tilmaamo inay iyaga laftoodu xal ku maqan yihiin laakiin wali uu noqon kari laayay xalkii loo baahnaa waxaan ku soo koobayaa masalada tan waxaan idin leeyahay waa dhib jirto oo inaga qurayna ma haysatay bini aadamka haysata waa dhib bini aadamka dhamaantii haysato xal u baahan
laakiin islaamku xal buu sameeyay ragga iyo dumarka in mid walba shaqo loo tilmaamay ilaahay dumarka wuxuu leeyahay waqarna fi buyutikunna guriyihiina deganaada daruura inay timaado mooyaane waxa la tilmaamaya inay guriga mas'uul ka noqoto maxaa guryaha burburka ku keenaya ee sababay in waqtiyadan dambe in badan guryuhu burburaan waxaynu tilmaamaynaa dhowr mas'alo kow duulimaadkii shaytaanka oo tira batay oo de quraanka iyo xadiisku waxay tilmaamayaan hadday sixirolayiin hadduu ibliis yahay wuxuu dhameeyay inay duulimaad ku wadaan sidii ay u baabi'in lahaayeen reer oo maxaa ka daawo ah waxa ka daawo ilaahay cabsidiisa la badiyo rag iyo dumarba haddii guriga ay cibaadada iyo diintu ku yaraato dhibta ku badanaysa haddii guriga akhlaaqiyaadka islaamiga uu ku yaraado dhibta ku badanaysa hadduu gurigu islaamnimada ku dhaqmi waayo dhibta ku badanaysa kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaynu leenahay iyadoo mararka qaarkood aan macnaha guurkaba la fahmin oo marar badan baa waxa iska dhacda gabadha iyo ninku ahdaaf aan ahayn guur rasmiya inay isu guursadaan isku dhoofa iyo wadan kale ku qaba iyo waxyaabo iska minors inay yihiin waxaynu leenahay waxyaabaha sababa waxa ka mid ah al-ummiya diiniya dadka oo diinta in badan ummi ka ah oo waa maxay haweenaydo aan garanayn waxa ku waajiba ama cagsiga ninka oo aan garanayn waxa ku waajiba oo quraanku wuxuu barayaa haweenka iyo ragaba waajibaad gaar inay saaran yihiin waxa kaloo kamid ah baynu leenahay asbaabta guriga burburkiisa badisa guriga aan lagaga dhaqmin dhaqankii islaamku uu ku baaqay ee ahaa in la isu naxariisto ee ahaa in la isu dulqaato ee ahaa in la isu dhuldhigo ee ahaa in cadhada la qarsado marka quraanku uu leeyahay wal kaadimiina al-ghayda ama quraanku marka uu tilmaamayo raxma inaad muujiso ninka cidda ugu mudan inuu naxariis u muujiyo waa caruurtiisa iyo reerkiisa haweenta cidda ugu mudan inay naxariis u muujisaa waa ninkeeda iyo caruurkeeda bashar aan gafini ma jiro xadiidka nabigu wuxuu tilmaamaya kullu ibn aadam khata wa khayrul khata'ina tawaabuun dadku dhammaantood waa dambiilayaal waxaana ugu fiican buu nabigu yidhi kuwa toobad keena haddii dadkoo dhami uu dambiilayaal yahay waxa habboon in la isu dulqaato oo dhaqankani uu jiro laakiin marar badan waxaad moodaa inaan guryaha ku badnayn wax iska celidaa ku badan gabadhuna inay istiraahdo ninka xaqaaga ka dhacso ninkuna inuu istiraahdo gabadha iska reeb waxa ka mid ah inuu gurigu xuquuqdu kala lahaa uu garan waayo oo maalan shirkad kasta oo dunida ka jirta madax bay leedahay iyo dad shaqaalo ka dambeeya ninka madaxda uma fakaro inuu shaqaalaha la loolamay wuxuu u fakaraa waa shaqaalihiisa inuu horu mariyo si ay shirkadda hore ugu marto shaqaaluhuna waxay ku fakaraan inay madaxdooda adeecaan si shaqadu ay si fiican ugu socoto gurigu waa shirkad laba qof isku darsadeen dhalla la siiyay madax waxa ka ninka waxa korkiisa saaran markaa inuu waayeelnimo muujiyo iyo inuu guriga maamulo hogaamiyo la tashado waxay cunaan iyo waxay ku noolaadaan siiyo u naxariisto qof muslim oo dhaqan wanaagsan inuu noqdo waqulu linnaasi husnan inuu kula dhaqmo gabadhana waxa korkeeda saaran inaanay la loolamin inay taaca muujiso